جزاك الله خيرا مركا برنامج كان أيام سي باللابنينا أستاذ محمد صالح هذا وما حسن تهي إن نكونتربيوت كريسيت قيب كم إذا وقت قاعد إن سيسيت technical problem يران لنا ولا عندي لكن سواء كجود بينا مركو هره برنامج كان يبان هرديك دورناف يعني يرؤوس ميني يعني life for learning بان وبحني أما باهين وحبرشوا حلقة بان هره وقادني أو كسب سنة الدولة دا إيو بلشة حرير كده حيو إيو وحيهين marka yani ustaad maxamed saalax insha Allah hadii ilaahay maanta wuxuu inoo soo jeedin doonaa inagula wadaagi doonaa barnaamijkeeni yani qayb kamid ah ama afkaar yani sida xurriyadda cadaaladda iyo sinaanta bulshadeed intaanan mawduuc aan ku wareejinin martideena sharafta leh baan hordhac yar rabaa inaan ka bixiyo maxamed saalax waxa way wuxuu kamid yahay aqoonyahanada Soomaaliyeed oo dalkii wax ku soo bartay kadibna Manchesterkiisa iyo doctorada wadankan Turkiga ka sii wado علومتا السياسة أيوه هدير PhD كسمينيا وحون أسي جودبي قابتي دمبه امتحان كأيو يعني كسي جودبي مرحلة الثالث كأيو جودبيا أستاذ محمد صالح صاحب سودو فليتفضل مشكورا مأجورا. أسمع ما حسنتهاي سيدا في عنا introduction كي قبل حسن عاد بقول ما حسنتهاي عاد كي وحملني أسيف ساحة الله مغليا. سيف يعني. أوكي مركا برنامج كنا بلوان كرنا وحملني ما قرني أنت دقيقة هاي السنة. تقريبا 15 إلى 20 أو كليتا يعني السنة. أوكي مركا. هدي على سؤالي معدن وحكوا كنا لا. أوكي مركا. كل ده موضوع ماشي الله وحشري تمنطق غلوس وكوبي كريو معهن لكن وحسمينا نوح أو سي أو ذكرنا أفهم كريان بانسودية هنا أو يراهدو صدق الكونسبتيو ماشي تعالى وصدق الكونسبتيو هرتا علوس أو very complicated أي علاقة تهي إن لفهمه ayna nolosha bini'aadanka qayb kamida oo taagan wax daily u taagan oo maalin kasta waa maqalnaa wax maalin kasta daily life keena maqalno waaye xorriyad xorba u baahan inay ahaado cadaalad baa loo baahan yahay sinaan bulshada baa loo baahan yahay ama wax la raadinayo ama wax qof kasta oo bini'aadan qoys ahaan bay u jiraysaa bulsho ahaan bay u jiraysaa level kala kor markii la kala wax u jiraya soo marka waxa isku dayaya saddexda concept markii si loo fiiriyo way isku xirmaan si marka loo fiirina waa kala qaadmaya yani waxa isa saameeyo saddex concept oo isa saameynaysa waaye si kala markii loo eegana waa saddex concept oo mid kasta gaarkeeda ay u jirayso mid kastana muggeeda gaarka ay leedahay soo marka waxa isku dayaa marka 15 daqiiqo concept kasta inaan macneeyo inta garashadayda waxa ay tahay iyo yani filaya bulshada Soomaaliyeed meeshan ka joogno in loo baahanayo oo malaynaya inaan wax yar ka taabano wax marka labada noo dhaxeeya taa noqonaysa ay kana conceptiyada inaan macneeyo oo isku dayaya conceptiga koowaad oo ku macnaysa xorriyad baa meesha ku qoran xorriyad marka waxa isku dayay laba eray baa jira su'aalaha marka way adag tahay luqad markii wax inta laga bedelo luqad kale loo turjumayo way adag tahay in turjumaad la sameeyo inkastoo aniga Soomaaliga iska yani xadidan yahay hadana laba concept baa jira oo erayadan conceptyada noocan oo kala inta badan waxay ka timi galbeedka wax nooga yimi waaye usually inta badan waxay yimaadeen enlightenmentiga waqtiga period of enlightenmentiga loo yaqaan wixii ka dambeeya yani 17th century 18th century wixii ka dambeeyay bay aad u soo aanbaxeen waa wax kamid ah yani xadaarada reer galbeedka qayb kamid oo meelaha galbeedka nooga timi waaye marka laba eray baa jira yani kobcooda halkaas inta dambe xilliga casriga ah xagga nooga yimi waaye laba eray baa marka kala jira mid waa liberty midna waa freedom so mida ku macnaya marka garan kari waayo maadaama culture-keena Soomaaliya dhaqankeena Soomaalida marka la eego raaliga ay adag tahay eraya dhexdeena ka yimi aysan ahayn laakiin labadaba laba eray oo hoos yimaada way saameynaya so marka wax isku day labadooda inaan macneeyo ka rabno marka u qaadano liberty iyo freedom marka la fiiriyo freedom waxa lagu macneeyaa in ay tahay yani qofka in uu helo waxa xaq u leeyahay uu xaq u siinayo xornimada qofka xaq u siinayso constitution-ka bulshada u deegan waxa bulshada isku heshiiyeen iyo waxa u yaqaanaan moral order-ka maxaa bulshada sax ka ah mise maxaa bulshada xaq khalad ah yani bulshada laftigeeda waxay leedahay limit and boundaries bay leedahay waxa ay ka gudbi karin bay bulshadu leedahay waxa laga yaabaa wax xornimadka ama freedom aaga arkaysid bulshada Turkiga dhexdooda marka tagtid bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda aysan freedom aysan ka noqonaynin laakiin haddana
soo marka waxaa la yidhahdaa marka freedom waxaa lagu macnayaa in ay tahay in aad access inaad samaysid inaad heshid waxaas. Liberty marka waxay noqonaysaa inaad xaq u leedahay inaad heshid rightskaas ayna mas-uuliyaddeedana kaa saaran tahay adiga. I don't know labada macne iskala duwanaanshaheeda uu cad yahay. midna waxaa weeye limitka xorriyadda aad leedahay freedom maxaa xor u leedahay oo constitutionka degan iyo moral orderka bulshada u degan ay ku siinaysaa. midna waxay tahay libertyga oo ah waa natural right waxaan inaad xaq u leedahay inaad kuwaas heshid inay tahay wax aad si dabiici ah u heshay. idan marka conceptigu marka ereyga liberty markii la macnayo ama xorriyad ereyga waxaa la yidhahdaa waa erey xiliya badan soo jiray Greek iyo meelahaas Latin buu ka yimi. ereygu marka wuxuu la macno yahay baa la yidhahdaa qofku inuu sameeyo sida uu rabo inaa xor tahay yani waxaa rabta inaad samayn karaysid aysan wax ku xadida aysan jirin. yani usually marka wax ku xadida waxaa laga hadlayaa waxay tahay inaysan cidna kuu sheegi karaynin waxaana sidaana inuu qofku uu sameeyo your own will you act upon your will bay yidhahdaan. so wax badan baa marka laga qoray waa mawduuc hoosgelaya waxay yidhahdaan political philosophy-ga. marka waxaa jira laba qaab waxaa jira culummada wax ka qodhaada ugu waaweyn nin la yiraahdo oo wuxuu leeyahay kitaab la yiraahdo on liberty wuxuu marka ku macneeyay laba liberty buu macneeyay marka wuxuu kala bixiyay negative liberty xorriyadda togan may noqonaysaa waxay noqonaysaa adoo xorriyad negative ka iyo positive liberty iyo xorriyadda positive ka. Isaiah Berlin essay uu qoray bay ahayd 1958 buu qoray xilligaas weli xor maana noqon anaga Soomaaliya codbaysaa imku essayga qoray. Negative liberty-ga marka wuxuu ku macneeyaa Isaiah Berlin in ay tahay wax uu qofku si naturally ah ama si dabiici wax adigu oo ku dhalatay. tusaale ahaan oo kale wuxuu example u soo qaatay I am no one's slave. ana xor baan ahay adiga. That's a negative liberty. yani ina adigu xor tahay aad cidna slave u ahayn. Positive liberty-gana wuxuu ku macneeyay inay tahay in marka xor aad tahay adiga no one is slave inaad tahay markaa noqotid then you act upon your will. marka waxaa artid baa samaynaysaa marka you are no one is slave. maxaa marka positive liberty-ga ka dhalanaya inaad xor tahayoo waxaa artid marka aad samayn karaysid. then labadooda marka interconnected bay yihiin buu dhahay. tusaale ahaan oo kale markii leedahay negative yani waxaa la yidhahdaa liberty waxay la mid tahay buu dhahay waa free from external interference baa ka noqonaysaa. yani anigu waxaan samaynayo cabdisamed ma soo faragashanayo. yani cabdisamed xor baan ka ahay weeye. cabdisamed aniga haddaan slave aanu ahayn anu masterkayga ahay my own master aan ahay waxa aniga samaynayo marka cabdisamed ama qof kale ma soo faragashan karo. positive liberty-gana marka waxay tahay buu dhahay waa ina adigu your own master aad noqotid waxa artida aad samaysid. tusaale ahaan marka wuxuu soo qaadanaya tusaale waxaa ka mid ah diinta oo kale adiga you free inaa waxa artida aad dooratid. marka yani negative liberty waxa soo gelaya wax kasta oo si natural ah u leedahay. tusaale ahaan oo kale ina xaq u leedahay inaad noolaatid. yani qof kasta xaq buu leeyahay inaad noolaatid waa negative liberty buu gelaya. xaqna u leedahay ina waxa diinta artida aamintid adiga. yani la ikraha fi diin laftigeeda marka xor baa u tahay bay la mid tahay. dan marka wuxuu ku leeyahay qofku isagoo xor ah buusan haddana waxaa laga yaabaa libertygiisu inuusan dhammaystirnayn. idan meesha halkan ay ka imaanayso waxa weeye positive liberty-ga. wuxuu ku leeyahay haddii aad tirahdo xor baan ahay laakiin aadan property lahayn aadan caafimaad haysan aadan xornimadaadu ma dhammaystirnaa kuwaasoo dhan marka waxay soo gelayaan buu ku leeyahay positive liberty oo ah inaad xor ahaatid inaad property leedahay inaad propertygaaga waxa artaa ku samayn karaysid inaad free speech leedahay hadalkaaga waxa artaa oran karaysid political freedom ana haysatid waxaasoo idin waxay soo hoosgelayaan buu ku leeyahay positive liberty-ga. ina xaq u leedahay iskuul aadid. tusaale ahaan oo kale wuxuu ku leeyahay haddii aad xor tahay laakiin aadan lahayn skill aad ku shaqaysatid aad wax ku heshid dan weli waxay ka mid tahay marka waa meesha marka wuxuu ku leeyahay society-gu markii ay heshiiyaan wax ku heshiiyaan ay wax dhistaan nidaam dhistaan nidaamku meesha uu rabo inuu dadka iska dheelitiro waaye. yani dadkan marka qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu tacliin helo yani xuquuqdaas yaa ku sii qof kasta wuxuu xuquuq u leeyahay inaad shaqo heshid baa xaq u leedahay waa free waa liberty adigo aad leedahay weye. xor waxaa u tahay inaad shaqaysatid adna kuma oran karid kuma dhihi karno ma shaqaysan karaysid
tan sida markii aan dhahno ku leeyahay ay ku leeyahay culimada wax ka qodha oo aan dhahno dadka dhan marka waa wada xor de qof kasta hadii la yiraahdo xor weeye qof kasta wuxuu rabo ha sameeyo de ma shaqaynayso maxaana xadidaya marka baa la yiri maxayna xadidaya dood kala timaade waxaa jira falsafar la yiraahdo John Stuart Mill wuxuu leeyahay kitaab uu qoray iyadana xiliyadaas oo uu isaguna ka warramayo principle buu soo saaray oo la yiraahdo harm principle oo ah goorma wax dhibaataynaysa libertygaagu waxay ku istaagaysaa markaad dhibaataysid qof kale ama wax dhibaato leh aagaysid waa markaas markii dawladdu intay soo faragashato ay imaanayso inay ku tiraahdo okay xuduudaadi waa dhaaftay still markaa waxaa jira qof kasta xorriyadaada waxay oran jireen xorriyadaadu meesha taydu meesha ku dhamaato bay taadana ka bilowbataa marka iyada conceptigaas marka libertygu wuxuu xambaarsan yahay daasub raaliga hataa si kooban u soo macnayno inuu qofku xor ahaado xorriyadaha faraha badan leh haysatid ay ka mid tahay ina xor u ahaatid inaad wax baratid xor u ahaatid inaad shaqaysatid xor u ahaatid inaad diinta aragtid ku biiri karaysid xor u ahaatid inaad siyaasadda groupka aragtid aad bahalkaysan karid xor u ahaatid inaad codkaaga ama free speechkaaga aad hadli karaysid cidda aragtid waxa aragtid aad sheegi karaysid xor u ahaatid waxaasoo dhan baa soo hoosgalaya taas haddii marka يعني limitkan wuxuu yahay waa markii ay wax dhibaat ay qof kale ku dhibaataysid yani hadaa iraahdo ka hor xor baa waxaan u ahay xorriyadeedu waxay siisay inay hebel aan dhibaatayo noloshiisa wax yeelayo yani meeshaasay ku istaagaysaa hal mar baan rabaa inaan ka dhex galo runtii yani si fiican ay noo kala dhigtay yani dhanka freedomka yani marka laga hadlayo waxaa jirto hadda tusaalahaan waxaad dhahday dhanka reer galbeedka in badan yani daban ayaga way qoreen way noo soo guuriyeen waxyaabo badan way soo wariyaan balse anaga nafteeni ka Soomaali ahaan ka Muslim ahaan ka dhaqamadan naftooda istiga loo tiiriyo waxaan isleeyahay tusaale hadal waxaa jiray Umar bin Khattab yani Umar bin Aas iyo Masar ka dhacday canugiisa anu kala tartamay markaas buu wuxuu u eexday canugiisa Umar baa u dacwooday daawadii Umar ay gaartay markaas buu wuxuu ku dhahay mata istaabatum an-nas waqad waladatum ummahatum ahraran oo kaleeto hadal ahaa baa jiray marka yani sida aad dhahday yani xurriyadaadi halka ay ku dhamaanayso yani waa halka ay tayda ka bilaabanayso yani marka xilidan dambe tusaalahan haddaan ku weydiiyo Soomaalida waxaa jirto yani social media hadday tahay siyaasadda hadday tahay waxaa arkaysaa qof baa yani xuquuqdiisa shakhsiga ah lagu hadgudbaya ama wax laga sheegaya ama si personal loo ataagaraynaya yani arrintaas may ka mid tahay yani xurriyadda ama waa arrin anti ku ah waay يعني إن قف سي personally لو أتاجريه أو قف I don't think so أنا حريتك فكرة الإيجار كهوية صلاة وكلنا عبد السمد صلاة وسوق هذا عبد السمد أنا سي personally أو أتاجريه أو أن أهين وأن كريتيك أهين يعني أنا حرية ماشي كجلسة يعني اللي بتك حرية كوبان تاي culture كلجو إيجي هنا وامين على جاي بقى مسلم أنا نعدان ناي inaysan culture-kayaga iyo dhaqanka aan haysano inaysan xorriyad ka noqonaynin in general laftigeeda inaysan xorriyad noqonayn baa laga yaabaa meesha civil court iyo maxkamada iyo laisla aado laakiin anyway muhiimaddu waxay tahay fikraddu ay faafinayso in qofku sida Umar bin Khattab oo kale uu sheegay qofku inuu dhashay isagoo xor ah inaad cidna adoon aadan u ahayn xorriyadaada free ah liberty-gana marka waxay ka jawaabaysaa inaad exercise garaysid xorriyadaas freedomka adoo free ah dhalatay iyo xorriyadaha kale ay ku siinayso ina access garaysid xaq u leedahay cidna aysan ka hor istaagi karaynin free speech-ka ka mid ah political freedom-ka ka mid ah cidda aragtid u codayn karaysid cidda aragtid haddaadan ka helin oo qofka aragtidiisa siyaasaddiisa wax ka sheegi karaysid aan lagu dhihi karaynin yani waxaan saan maaha annaga waxaan ugu badan haddii qof uu wax kritik garayo in la iskugu soo gabado mataqaanaa la yiraahdo qaranka iyo ummadda iyo dalka iyo dadka yani waa fahmi karaya aniga marka as a political science student marka si fiican u fiiriso waxa u dareemi karaya yani society mujtamaceena dhexdeena muhiimad weyn kama lahan conceptyada noocaas oo kale ah yani muhiimad weyn baysan ka lahayn faham weynna ma jiro yani qofka wax laga yaabaa inuusan fahansanayn buu wuxuu xuquuq u leeyahay حقوق ولا ده إنه سبحان سنين يعني حقوقنا يوجد واحد هذا liberties كسائدين واحد أو قفك أو يدو أقول له هذا هي منطقة أن
xaq ay tahay wax natural ah u dhalatay sida cumar khadaab sheegaya haddana waxay u baahan tahay inaad u dhacsatid yani tusaale ahaan oo kale hadda inaad shaqo heshid waa wax ay tahay xor u tahay inaad shaqaysatid inaad wax critique garaysid ama waxaadan ka helin aad ka hadli karaysid waa waxa xor u leedahay yani ka mid ah xorriyadahaaga dabiiciga so inaad fahansan tahay baa marka ka horeysa inaad u dagaalanto horta waxaan leeyahay xorriyadahaagii inaad fahansan tahay kadib baa markaas aad ka hadli karaa u dagaalami karaysaa aad si fiican u cadaysay tusaalahan sida qofku xor ugu yahay inuu shaqaysto oo shaqo helo oo kaleeto yani bedelkeeda laguma qasbi karo inuu shaqeey yani waa ku qasban tahay shaqeey la dhaxan yani way soo gelaysaa isleeyahay طبيعي انكم فلي حر ليبرتاريان dadka liberty aad ugu dooda waxay qabaan inaguma qofka uu sareeynaa inaad shaqaysatid kuma khasbi karayso sababta isaga xor ah wuxuu xor u leeyahay way yani markan waa wax aniga go'aankayga waa upon my will way waa aniga sidaan rabo inaan sameeyo yani dawladdu intay timaado ima oran karayso waana khasab ku shaqaysataa haddaan rabo inaan shaqaysto ana ii taala laakiin haddana waxaa sidoo kale xor u leeyahay haddaan shaqaysto cidna ma hor istaagi karo ima dhigi karayso يعني مش shaqaysan karaysid yani libertarianism ama nadariyada xorriyadda dadka aad hadda waxay noqotay political theory ama wax weyn oo paradigm xoogan nadariyada xoogan waaye libertarianism ama libertyga dadka u dooda taas waxaan walaalahay inta aan kaga baxno laakiin wax qofka bini'aadanka laakiin wax waxa weeye muhiim u ah oo uusan loonaan karin la'aantiis even xataa markii la eego يعني أرجع وحنا أركي ليبرتيجا مركي وجوه الرئيسول الحصي وحياة قرني لبعضني أفراد بيسي نبي إيش بلا شيء سكر وحياة نظام كتير تشري وضمادان يتونا حيسا العراق إلى تركيا سوريا إيران بقول لأورين تشري أرتكون أنو أهابا أم علينا يعني وحو قري مركز civil code miyaa la yidhahdaa aduu qaanuun uu qoray markaas oo ugu doodayey uu lahaa uu xuquuq ugu raadinayay dadka taajiriinta ah yani gaabka dhaqaale ee u dhexeeya dadka taajiriinta ah iyo dadka mataqaanaa faqriga ah marka wuxuu bixiyey waxaa umalaynaya ereyga liberty markaas wuxuu leeyahay waa social and economic liberty bay ahayd in gaabkaas ka baxdo si fiican yani waa labadaba waa kugu taageersanahay balse waxaan isleeyahay maadaama laba terminology ay yihiin waa soo gebagabaysay qaybtaasaan ugu sii gudbaynaa yani freedom qaybteeda in la isticmaalo libertyga oo kaleeto haddaan dhahno yani waxyaabo kale iska soo hoosgeli karo tusaale ahaan yani in hello ها لكن ليبرتيجو waxay ka turjumaysaa waxay tahay freedomiska aad ku haysatid constitutionka iyo moral orderka society-ga ka jira inaad samaysid yani inaad xaq u leedahay inaad kuwaas samayn karaysid yani laba concept oo soo simaada isku xiran waaye so taas halkaas iga tagay way adag tahay in bulshadeena hadda xilligan ay fahmaan laakiin wax loo baahan yahay inay fahmaan waaye yani kana qayb qaadanaysa society-ga wacyigeeda iyo horumarkeeda iyo sida aan qabo aragtida waxa weeye iyo geedi socodka iyo bulshada aan ku mahadsantahay inaad ku baraarujisid conceptiga kale marka waa cadaalad iyadan waa very complicated concept iyada laftigeeda maxaa cadaalad ah yani maxaa cadaalad noqonaya that's the first question markii dadka la isweydiiyo yani waa wax iyadana yani daily life-ka dadka ka mid ah waxa maalin kasta waxaa maqlaysaa waxaan cadaalad maaha waxaan cadaalad maaha maxaa laga wadaa yani usually ma interestiga adigu waxaan u arag sidan miya cadaalad ma aha miyay noqonaysaa maxaa cadaalad noqonaya waxa cadaalad u arkaysaa in sinaan la helo miya cadaalada maxaa cadaalada in fairness la helo maxaa cadaalada in aad heshid waxaad adigu xaq u leedahay get what you deserve yani wataas cadaalad ku noqonaysaa mise waxa cadaalad ku noqonaysa inay heshid waxa adigu u baahan tahay laakiin إذا لفت هو very complicated concept iska cadaalad loo qeexayo laakiin doonta marka waxa ku dhalanaysaa waxay tahay yani in la helo bulsho cadaalad ah yani bulsho cadaalad ku dhaqanta sidee loo helayaa it's even hataa haddii mataqaanaa la dhiso societieska ay dhistaada democracyga xoogan ay ka jiraan cadaaladda fiican la yidhahdo way ka jiraa iyaga laftigeeda weli waa laga cabanaya cadaalad daraa jira yani weli
ha wax la kaafin karayo ma ahan oo 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 mataqaanaa levelka ugu sarreeya laga gaari karayo laakiin haddana waxay tahay cadaaladdu simple rally inta aan ka akhriyay inta aan ka fahmay waxay tahay cadaaladda in dadka dhan bulshada intee dadkeeda kala duwan qof kasta wuxuu ku qanacsan yahay loo sameeyo which is totally impossible simply hadda waxaa laga yaabaa tusaale ahaan oo kale hadda maraykanka ama movement revolutionka hadda ka socda ee ah black lives matter yani waxay arkaan inaysan cadaalad aysan jirinin hadda soomaaliya hadda gudaheeda kusoo laabano waxaa laga helayaa yani boqol kiiso cadaalad darra ah so usually marka iyadoo laftigeeda waxay kusoo laabanaysaa inta badan qofka cadaalad darrada u arkaya waxa weeye arkaya markasta ama qofka riixa in cadaalad la helo oo waa qofka ay wax ka maqan yihiin yani qofka haysta wixii isagu uu rabay u arkay inuu haysto usually qofkaas qof cadaalad ka hadlaba waa percentage yar dadka ka hadasha يعني waxa uu haystaa waxay la tahay systemku haysta cadaalad la ah yani cadaalad la ah isagu moogtahay that's why aan kuu leeyahay cadaalad maxaa noqonaysaa ma waxa cadaalad ku qeexnaa inaa heshid waxaa deserve garaysid mise inaa heshid waxa u baahan tahay qof waxa laga yaabaa inuu haysto what that person deserves so wuxuu arkaa in cadaalad ay jiro qofna waxa laga yaabaa inuusan haysan what that person needs marka wuxuu haystaa in cadaalad darra ay jiro fahmaysaa so cadaalad darrada marka waxay gelaysaa meelo badan bay gashaa iyada laftigeeda waxay gelaysaa economic cadaalad darra dhaqaalaha jira waxaa jiraysaa cadaalad darra siyaasadeed cadaalad darro bulshada jiraysa oo bulshada loo social classka meelaha laga kala joogo hadda soomaaliya oo kale haddii bulshadana qabaa'ilka ku dhisana aragtid cadaalad darro xoogan baa ka jira waxa kugu filan waxay tahay 0.5 waa cadaalad darro meesha ugu xuno inaad tiraahdo qof waa half haddana laguma baraarugsan inay cadaalad darra tahay iyada laftigeeda yani sababtoo ah waa social norm caadi oo bulshada dhexdeeda ka jira buu noqday so cycle xoogan maxaa oranaya yani waxaan jeclaan lahaa yani tusaalahan dhalinteena hadda wax baratay ama kuwa hadda waxbarashadii ku jiro yani in nidaamada ama social justiceskan waxaan dhahaan yani tusaale waxaa hoostay yani cadaaladda dhaqaalaha ama siyaasadda ama sidoo kale xitaa waxaa jirto yani waxbarashadii caafimaadkii adeegyadan dhan waxaa fiicnaan lahayd yani in loo simnaado system saas ah oo dadkii dhan into yani simo adeegyadii ay u wada heli karaan ma lahan marka annaga ka dhalinyar ahaan ama aqoon-yahan ahaan yani at least waa ina ogaana tusaalaan cadaalad dhaqaale oo kale marka la dhaho anigu maxay tahay inaan fahmo tusaale cadaalad darra dhaqaalaha jirtaan dhahay yani ma noo ifin kartaa taas cadaalad darra dhaqaalaha jira waxay la mid tahay aniga groupka aan ka tirsanahay ee society-ga qaybka ah yani fursadaha ee dhaqaale ee ka jira society-ga ay ka jira dhexdeeda inta waxa aaga baahnin kamaana helin yani cadaalad darra dhaqaala waaye cadaalad darra siyaasad waxay noqonaysaa groupka anigu aan ka tirsanahay group x yani society-ga laftigeeda ama middle class ahow whatever anaga society-gan hadda qabiil baa la isku qaybiyaa yani society-gan qaabka social structure bulshada u dhisan tahay iyada laftigeeda in la qeexo cadaalad darrada qayb bay ka qaadanaysaa hadda maraykanka hadda marka ka sheekeynaya maraykanka qaabku xaga jira waxa weeye waa race waa midab yani dadka madow waxay tirsanayaan in nidaamka cadaaladeed ee waddanka ka jira inuu iyaga si cadaalada ula dhaqmin in cadaalad darra dhaqaale ay ka jiro fursadaha bahalkii ay u sinay shaqaalaysiinta laftigeeda qayb ka ah economic marka laga hadlayo injustice ka dhici karaya ha shaqaalaysiinta way ka jiraa waddankayga hadda gudaha marka dib loogu laabto yani in la yiraahdo tusaale ahaan oo kale waddankeena si kale u kala qaadno aan kala qaadno dumar iyo ragga cadaalad darra shaqaalaysiinta markay timaado cadaalad darra dhaqaale xumo oo xoogan baa ka jira dumarka lagu sameeyaa hadda percentage-ka ama inta ay qof dumara lagu shaqaalaysiin karo Soomaaliya iyo inta shirkad ay ku shaqaalaysiin karayso qof rag ah waxa badan inta qof rag ay ku dooranayaan ku shaqaalaysiinayaan taas ay tahay haddana way sii degaysaa iyada laftigeeda marka wataa marka laga tago wax waaye genderka loo fiiriyo haddana society-ga sida isku qaybiso markii loo fiiriyo ee ah nidaamkan ku dhisan reerka iyada laftigeeda cadaalad xumo dhaqaale xoogan mid siyaasadeed iyo mid bulshada ka jira xoogan iyadana halkaasay galaysaa so
waa very complicated concept oo ay adag tahay waxaa jira nadariyad uu develop gareeyey nin falsafo oo Mareykan ah oo John Rawls la yiraahdo kitaab leeyahay uu ku qoro waxaa la yiraahdaa theory of justice markuu wuxuu develop gareeyey concept oo ah fail of ignorance conceptiga marka saan ay u dhigmanaysaa oo very interesting way fiican tahay abstract ahaan way u fiican tahay laakiin practically way adag tahay in la fuliyo so wuxuu ku doodayaa si loo dhiso society oo fair ah in la dhiso fail of ignorance waxay ka turjumaysaa in sidaan la yiraahdo qof kasta ka waran hadduusan ogaan lahayn society-ga booska ka joogi lahayd ana waxa weeye qofka cadaaladdan ay jiro isku arka wuxuu isku haystaa inuu haysto wuxuu isagu deserve gareeyay haddii ka waran aadan ogaan lahayn intaad dhalan ka hor inaadan halkaas aadan joogi lahayn yani very complicated concept يعني قياس imagine قريبه كله إنا أهان لهيد قفك عدالة درجة تصنيع بوسك سأجوج لهيد يعني معناه حقوق آذان أوجين ما براتسين كرتيد أوكل يعني هذا بروهين somehow ها so context كنا سومالي عدالة الروح هم بيجدا يدا لفت كده الرباط إن لا الله يا هم لنا يا إن سي عدالة درجة صلاب بابيو أوكي عدالة مركز نظام كعدالة مركز يدا لفت كده وحقيقة قاطع وحيته نظام كعدالة ده ودن ككتشرة يعني يدا لفت مركز هذا وحقول ما أنا concept تيجي قدام يسوع سنان تبلشوا inta aadan ka gudbin conceptigan cadaalada yaan jeclaan lahaa in tusaalahaan xilligii oo 1600 yani ingiriiska oo kaleeto boqoradii Elizabeth qawaaniin ay dejiyeen oo qawaaniintii la dagaalanka yani faqriga ay dhahayeen tusaalahaan waxa in badan loo dooday cadaalad bulshadeed oo ay helaan dadka shaqaalaha ah yani xilligaas oo kale dadka qofka saacado badan baa lagu shaqaysan jiray lacag aanan u dhigmin inaan lama siin jirin tusaalahaan taas oo kale cadaalad darro waayo هذا دلكي أكلت وحاس سورتقال هاديات وحاس سورتقال إن شركة 100% أي فايدو سنة كان يعني العكس سوق شيء بقول أي فايدو سلوا كلن شغالها وشغالين أي شنت سنة قدام بيسوي مشاركة سا أنا مرنيس بدين تاس أكلته يعني نفط هذا الروح قوي لكن لما واحد مركب ماشي كم مقال لو واحد ماشي كم مقال واحد تاعي يعني قابك عدالة مركب راتسنة سلور راتسنة واحد تاعي واحد كم مقال راتسنة واحد تاعي هنا abaabul uu jiro hada anaga unionistkaas oo kale way naga maqan yihiin dadkii push gareyn lahaa waxaan laba institutionada dadkii xaqooda u raadiya meel u raadsadaan ma jiro laba gaab oo xoogan baa jira salaana kale marka is abaabushid oo wax qaylisid waa inay jiraan cid qayladaada intay maqasho ka awood badan cidan adiga ku shaqeynaysa u shaqeysid oo oran karaysa waxa dadka ku sameeyaan waa xaq darro waa cadaalad xumo soo markaas iyada laftiga ka qayb qaadan karta ku doodi karaysa anaga marka fighting marka labadii way ka maqan yihiin soo anaga marka waxay tahay nidaam marka alla iskaga tunto dadka shaqaalaha ah aan dumarka lagu tunto in dadka mataqaana minorities-ka haday minority aan haysano ba ay jiraan iyaga laftooda xaq la iska mariyo yani qaanuun alqaaba ba caadi iska jira iska qaanuun alqaaba ninka xoog weyn ba awood badan iska qaanuun law of jungle way markaas sidaas baa ka jira laakiin wax u baahan way in lagu baraarugsanaado laftigeeda waxa laga yaabaa hadii shaqaalayaasha is abaabulaan shaqaale ay dhisan lahayn union laftigooda iska wadhaaf yani institution ka maqnaadanaya laakiin u dooda xuquuqdooda oo yiraahdo qof kasta u soo dhiciya shirkadda intuu tago yiraahdo waxaan dadka ku sameeyaan waa khalad waxaan hay'adaha dawladda iska jiraan laftigooda ay wax ka qaban lahayn waxun baa socon lahaa oo imaanaysa laakiin wax ka qayb qaata mataqaana waxay yiraahdaan wacyiga iyo baraarugsanaanta bulshada ay leedahay ani waqti u baahan tahay inay waqtiyada noocaas oo kale bulshada dhexdooda ay ku dhismaan waqti bay qaadanaysaa so waxa uu malaynaa 15 daqiiqo u dhow yahay marka conceptiga ugu dambeeya laftigeeda aan soo baalkiyo conceptiga ugu dambeeya waxa weeye waa sanaan bulsho iyada laftigeeda waa another very complicated concept waaye meel kastana ka taagan social yani waxay imaanaysaa marka bulshada dhexdeedii wadankii bay tegaysaa qaarad bay tegaysaa adduunkana way tegaysaa adduunka waxa ka taagan dood oranaysa waxaa jira sinaan xumo waxaa jira bulshooyinka adduunka u dhaxaysa ama wadamada adduunka u dhaxayso xoogan baa jira soo marka sidee loo macnaynayaa marka sinaantaas
aad iyo aad tusaale ahaan hadda yani markaan ka baxano borderka yani banaanka intaan u bixin wadanka gudihiisa oo kale yani sinaan bulshadeed marka la yiraahdo qof muwaadinka ah maxay tahay inuu fahmo yani maskaxdiisa maxay tahay inuu soo degdego aad iyo aad laba aragti baa jira marka midna waa equality midna waa equity. Equity inta badan waxaa laga yaabaa in ay tahay noqon karaysaa waddo loo mari karayo equality-ga laakiin equality-ga ee ah conceptiga sinaanta waxay ka tarjumaysaa sidaan u macnaysanaysaa waxay tahay in loo sinaado dhammaan fursadaha jira dadka inay u sinaadaan yani fursadaha siyaasadeed jira dadku inay wada sinaan yihiin kuwa dhaqaale in loo wada sinaado kuwa caafimaad in loo wada sinaado kuwa shaqo in loo wada sinaado kuwa waxbarasho in loo wada sinaado yani in loo sinaado waaye wax kasta oo bulshada dhexdeeda ay haysato inuusan qofna qof uusan ka lahayn privilege arana wax Soomaaliya uu ku macnaysmayo qofna qof inuusan ka haysan mataqaanaa daryeelka xuquuq gaar ah ku lahayn ama in waxa loo sinaado waaye siman. Equity marka iyadu waxay ka tarjumaysaa waxay tahay in la eego dadka baahida gaarka ah qaba si loo helo equality. dadku way kala baahi badan yihiin in dadka lagu xadido baahiyaha jira baahida qof kasta oo markaas haysata si loo helo dadka loo simo bay equity-na noqonaysaa. hadda yani equality maanta dhan baa ka sheekeynana equality xoogan ma jiro bulshadan dhexdeeda waxaanu ku fiicannahayna ma ahan yani sinaan xumo bulsho baa jira dhan kasta way ka jiraa genderka hadii loo fiiriyo mujtamaceena waa iska mujtamaca patriarchal societies kaga dhisan oo dee rajuli ah oo raggu isku xoog badan yihiin haddii loo fiiriyo qaabka anagu isku qiimeyno oo bulshada u qaybsan tahay social structurekeena la fiiriyana dee war male iyada waxa ka hadal ma yaalaan dee looma sinna fursadaha yaalla looma sinna yani usually si loo sameeyo hadda conceptiga waxaa ka mid ah daaita ka sheekeynayso ahayd in boqortooyada ingiriisku ay يعني شرعية دجيان يعني institution أي وباهنتا وحياة نوع عاصو كلا إن للسماء واحد institution وباهن لا واحد وباهنتا نسكاب صدان لا واحد وباهنتا نسكاب صدان بيد وين بلشة لفت كذا يجوز أبا بولان بلشة وعي كذا وحن فهمان لابا إلا هلا institution كشقية أما دجية شرعية أما policy strategies لو هلا يو social equality لو سمينا يو لابا دينا وين نجمع قيهين I hope in maalin ay imaan doonaan tusaale ahaan yani tusaalaha bixisay genderka oo kaleeto yani in xuquuqda hablaha markasta ay meesha ka maqan yihiin hadday shaqadii tahay xitaa hadday gurigii tahay haddii lagu xadgudbo inay access u hesho qaanuunkii oo kaleeto xuquuqdeed inay u doodo aad tahay oo kaleetaa jirto yani xaqiiqdii وأنا كل هاي وإسكو عدالتي بهوز جلسة يعني قف كبركي ودرامو إني سنام بلش أي سنشرين وإنه ترى نظام عدالة دلفت كده ماله أورس institutions عدالة ده وأنا ترى أنا وقف كانوا آدي كرايو وأوران كرايو وحصل له سمي أما حرية دي وقف كان كل حد كبي أما قف كان وحو سمي سنان تيدي أما وح حق لها أو السنين بيجهر استاجه لكن يدنا ده ما هيستنا نحسنه يعني تسألوين ككلاتو يعني تسألان وحاب حسي دتك أو نافذة أو كلاتو هدي يعني physical أي تهاي هدي mental أي تهاي عرورت أو كلاتو با إن بدن يعني حقوق ضدي أما سنان تودي بولشيدتها equity بين قانون تاسي وحين قانون equity أو دتك باهيدو ده إن لو إيجو سي equality لو جارو يعني دتك وحلا فيرني special needs كله لكن قصوان قف يو أردي صعونية يقف إن لا ما أورن كريسي فرصة ده وأول السنة سنة وجود equality بكتير ما أورن كريسي صوت دتك وانا equity ماشي تمادا ترى هذا قف كان باهي جارو ليه هاي وحلا فيرني according to that person's needs بلا فيرني باهي دي سجاركا سلوه له social equality سنان بلشو أما سنان تبلشو سلوه له وحنا بانتي هاي أدو حقن وكشقية برنامجyada noocaas oo kala ah ma haysana hadda hay'ado xoogan oo ka shaqeyn karaya dawladeed bulshaduna kuma baraarugsana laakiin waqti bay iska qaadanaysaa si wax caadi ah wax u baahan tahay waqti un qaadanaya geedi socodkeeda waqti bay qaadanayaan
أستاذ نعم سؤال آدم كاغم هذا لنا يا أفكار وناكسن حرية iyo cadaaladda iyo sinaanta bulshada in la wadaagtay runtii qodob aad u muhiim ah oo dhalinteeni iyo aqoon-yahanadeeni bulshadeeni guud ahaan ay tahay inay ku baraarugto waaye dhammaan inaan intaas dhan aad ugu mahadsan tahay waqtiga aadna siisay jazakallahu khayran hal daqiiqo oo kale haddii su'aalo oo kale ay jiraan baan yani u furay dadka yani ina daawanayo marka haddii su'aalo aysan jirin aad ugu mahadsan tahay waqtigaada iyo afkaarta macquulka ah in badan aan u baahannahay bulshadeeni bulsho runtii yani iska aqbali karto in haddii la dulmiyo haddii wax ka maqan yihiin xuquuqdeeda aysan raasanaynin ama nidaamka dowladeed aan la soo qabsan baa nahay haddii aad hal jumlo laba jumlo inooga soo koobi karto waa jeclaan lahayd soo dhawo yani conceptyadan horta waa conceptyo ay adag tahay yani wax bulshada dhexdeedana waqti ku qaadanaya way inay ku kobcaan laakiin haddana waxaa la rabaa saas ay tahay dad hogaamiya bulshada ku baraarujiya waxaa asaasanba dadkaas marka ay noqonayaan dadka wax bartay oo dadka cilmiga bulshada u ah waaye indhergaradka u ah weliba academicianiska anigu waxaan ku talin lahaa in aad wax loogu qoro bulshada mawduucyadana aad wax looga qoro farta lagu fiiqo aad loo analyze gareeyo wax badan laga sameeyo luqada dadku fahmi karaanna loogu qoro laguna baraarujiyo la sameeyo barnaamijyo badan oo kuwan hadda maanta oo kale ay qabatay oo mahadsan tahay dadka loogu sharaxayo waxa conceptyadan waxa ay yihiin macnaha ay xambaarsan yihiin sida ay tahay inay u fahmaan waxa ay tahay inay sameeyaan laftigeeda in lagu baraarujiyo intaasun baa kusoo koobi lahaa wax yar baana ka fahansanaya conceptyada intaan ka fahansanahay un baa in la sheegay waxa way waa nal fiican baa inooga shiday yani aad u mahadsantahay waqtigaada iyo juhdigaada yani waqti kooban aan haysanay iyo conceptska sida aad sheegtay ay ahaayeen complicated ama muaqad ay ahaayeen jazakallahu khayran shukran وحسنت هذه سنشري واحد سؤال أبرك حمل عليه تاسع كجتينا السلام عليكم شكرا